ururka dangarad oo ka shaqeeya deegaano ka tirsan gobolka Sool oo ay ka mid yihiin Gambare Holhol Jidbaale iyo Gori Gumeys Tuula Samakaab Yeele iyo Dandan iyo sidoo kale deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sool ayaa gurmad daawo iyo raashin ah la gaaray degmada Dandan oo haatan la tacaalaysa baahi caafimaad iyo cudurka shuban biyoodka oo hadba ruux u soo dhacayo. ururkan oo isugu jiraan qurbo joog iyo qorax joog u dhashay deegaanadaasi ayaa ka qayb qaatay arrimaha gurmadka dadka deegaankaasi loo fidinayo waxayna dadka ka wacyigeliyeen inay caafimaadkooda ilaaliyaan qashinkana iska fogeeyaan waxaana soo dhaweeyay dadka deegaankaasi iyagoona u mahad celiyay daawadan iyo raashinkana ay la soo gaareen xilli ay u baahnaayeen randisolkii iyo shuban daweeyihii iyo ringartii oo aan aad ugu baahnayn iyo faytamiinaad iyo kalorofinical iyo golofisiyadii iyo bahalihii maxaanku kaanoolayaashii iyo sirinjayaal bay isugu jira oo iyagana baahi fara badan aan u qabno xanuunkii oo hal dhugaale uu sii jiro laba iyo dadku ay soo dhacayaan mid iyo weli uu sii jiro oo waliba hadeer oo kale baahidu aad bay loo qabay aad bay u fiican tahay aad baan u gudoominaynaa waayo qorihii markii hore wax kan keeni jiray way laabteen oo waxay moodeen xanuunku inuu inta ku dhamaaday haddana xanuunkii waa sii joogaa marka cidii maanta naxustay aad baan u garanaysaa ku suunaanayna insha Allah ta'ala hadda laba qof bal sheegay hadda laba qof baa maantadan laba kiis baa noo yimid shalay saas oo kale laba ahaayeen doraatana saas oo kale laba ahaayeen tii ka horeysayna hal buu ahaa hal dhugaaluhu way iska jiraa kuwa dambe way iska soo dhacayaan ilaa iyagana caafimaad baan u weydiinanaa intan ka qayb qaadatay dawada iyo cuntada u keentayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajri xasanaad ka siiyo. Assalaamu alaykum warahmatullahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا وشياغي الشيخ دودا تيم كا قلدا عافماد كدليرada noo timi dangarad khayr Allah ka siiyo waa ka gudoonay agabkayna soo gaarsiiyeen ee dadka uu haya xanuunka shuban biyoodka maanta laba qof baa yaala shalay laba ahaayeen daraad mid bay ahaayeen dadku inta xanuunka u soo dhacaa Allah caafiyaanu leenahay waana soo gaarsiiyeen ashar iyo xasanaad Allah ka siiyo waa ka gudoonay anna waxaan odayaashii beesha Dandan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waxaan leenahay dadka kale ee aan hawsha ka qayb qaadan kareen xanuunka wali waa sii jira dhalinyaradaasna dadaal bay muujiyeen khayr Allah siiyo sheekhi magaalada caafimaadka u xilka saaraa baa ku hawsha lagu wareejiyay isaguna si loogu dhigay dadka insha Allah ugu ilaalin doona. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. ugu dambeyn gudoomiyaha ururka dangarad ayaa isna halkaasi kelmado ka soo jeediyay isagoona ku booriyay bulshada deegaanka inay ka shaqeeyaan deegaanadooda. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد إلهي مهدي سفر كديرا من لاسعانود إلى مقالة دندن إلهي ونوسو قولي واحد يريد يمان وارك حقا قراءة داود هاي أنو سيدني iyo xogaa geeray raashin ka ahaana Ilaahay mahadi waanu keenay gudidii magaalada aan nagala wareegay sida uu sheekhu nii sheegay dhakhtarka magaaladan ah iyo odayada gudidba ay nii sheegeen magaalada xanuunku sida deegaamadii kale ay hore u soo marayba xanuunku waa dabar go'aya waa siir yahay hadana dad xanuunsanaya way jiraan oo buka daawooyinka aad baa loogu baahan yahay sida kartoonka falembooyinka aanu keenay aad baa loogu baahnaa waa uu goonaa marka wixii yaraa aynu soo ururnay hadaynu dhalinyarada dangarad nahay iyo cidii naga kaashatayba malaascanad ha noqoto ha joogan ama qurba joog ba ha noqdaan cidii wax noo soo dirtay ama $100 ama $50 nagu caawisay tan Dandan iyo Yeele iyo deegaamada kale aan tagnayba aad baan waxa weeye ugu mahad celinaynaa dadkuna Ilaahayna subhanahu wa ta'ala ka abaal mariyo oo miisaanka xasanaadka waxa weeye ha ugu daro dadkuna way u baahan yihiin daawada waa loo baahan yahay waana la socdaa waxa kale oo muhiim ah oo aanu ku baraarujinaa sheekh wacyigelintu iyada waxa weeye wax walba akidka dadka heerbaadiyaha oo kale lagu wacyigeliyo oo mikrofoonka looga sheego oo qoraalada loo akhriyo si xataa qofka ku dhaca xataa hadii aan markiiba lala soo ordin oo maalin meesha lagu hayo dawoo fuuq baxaya waa halis dhimashada taas looga gudoomay dhamaan cidii magaalada nagu soo dhaweysay sheekha magaalada iyo odayada iyo aad bay u mahadsan yihiin wax hadda u jiifay magaalada oo meeshii dhakhtarka iskoolka jiifana
hadda ma jira dadka cusub ee la keenay xaafadahooda faleembooyinka loogu xidhay haddana waxaan kusoo dhaweynayaa ustaad Bilaal Mawlid Cali